liidata oo mataqaana ilaahay subxaanaka ku tilmaamay wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur ilaahay ku tilmaamay miyaad ku raali noqotay inaad ka doorataan aakhiradii jannadii weyneed ilaahay la kulankii xuurul caynkii miyaad ka doorateen adduunye oo sakaraada buu ilahay subxana wataala leeyahay ilahay marka wuxuu tilmaamayaa ruuxa jihaadka iyo hawsha aan u istaagin oo mataqaana ka fariistay ku raali noqday hawsha islaamaha inay la jiifto ilahay wuxuu leeyahay illaa tanfiruu yucadibkum cadaaban alima haddeedan u kactama inaad jihaadaan kitaabka aad difaacdaan oo mataqaana gabdhaha xurumaadka muslimiintaadan u kicina waxa weeyaan ilahay wuu idin cadaabaya cadaab fi dunya waalaakhira adduunyana dulli iyo hano idin saari aakhirane waxa weeyaan dadka muslimiinta aakhirane waxa weeyaan hadday arrinkaa ku dhacaan aakhirna cadaab unbaa sugayo ilaahay subxaana watacaala arrinkaaba ugu goodiyey cadaabka ilahna waad dareemi kartaa ruux waalidku markuu caruurtii u goodiyo waryaha maanta waxaa dugsiga u goysay oo caruurta mataqaana haddaad xaafada imaado way noo tahay marka la wilkii wuu cabsanaya wuu jaranaya limaada cuqubadii ka baqanaya walidaalika allihii boqorka ahaa oo adigu ku abuuray ayaa wuxuu ku leeyahay haddaad ilaahay kitaabka u istaagin haddaad ganacsiga aadan kasoo bixin oo ilaahay kitaabka iyo sunnadaan u istaagin haddaba waan ku cadaabi haddaba goodinta rabbi subxaana watacaala iyo wiciidkiisii waa arrin mataqaana aad iyo aad u culus weeye culummadu waxay yidhahdaan laba arrimood hadduu ilaahay subxaana watacaala qariyo waa laba arrimood waaweyn ah ilahay subxana wataala waxaa kamid waxay u qari awaamaanta ay weyn tahay tusaale soomku wuxuu yidhi assawmu lii wa ana ajzi bih soomku anaa iskale waxa weye anaa awaalminta bixina awaalminta rabbi uu qari waxaad dareemaysaa awaalmarin weyn inay meesha ku suganta walidaalika cuqubo ayuu rabbi subxana wataala qariyey يا إلهي معي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذا الجهاد كعتمنا وأتكد على كان إلهي لتقانا كتابك رسولك لتقانا مؤمنين تادك جهادك إلهي جدك إذا أتكد على كان ناك إما تقانا هايو عرور إيواي أتكد على كان إلهي وحوك الماما يا أرنتا قودي أذو كبحيو فتربصوا سكتبوا الله سبحانه وتعالى إلهي أرنكيسي يقوبريسي الدنيا إيمد آخرة إلهي أرنكا سكت إله أخري يا حتى يتلى بأمر أموري وحد ريمسا أرن أبك عقوبة على كيه متقانا دنبعيسو أرن كان إيتادي متقانا باع إلهي يلا قبحو وفاسقين إيتاوي جهاد كفرد عين كروحا كفريسو هذا هو حالة ذلك المسلمين تأهي دي حي إلهي بانجعلهاي رسولك بانجعلهاي ومتقانا دينكي سبانجعلهاي هذا هو حويا عدي إلهي دينكي سدعل وحال قرتا إلهي أبركي سوقاتا إلهي وحوك أمريا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وإلهي سبحانه وتعالى المامية وكعتموا إذكو يرير إذكو فضفض إذكو يرى إذكو عجلس والدقية وإستاذوا رب سبحانه وتعالى إلى كتابك دفاعتان يا إلى كتابك دفاعتان صناد الدفاعتان أنت وكعتم بولا إلهي سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا كأي إذا خير بدنا إلى كتابك أستاذتان إذا ما خير بدنا قراءتي إلى الفلسان إذا ما خير بدنا إلى قرين الفلسان في الأمر على ساحتان وحا إذا خير بدنا إلهي سبحانه وتعالى كتابك أستاذتان وأمر انفروا في الأمر وعلوم العليل الأمر يفيد بالوجود أمرك إلهي كالصبح وحوفا إذن يا واجب منه هذا وحا أمر إلهي وقبح إلهي إلهي كتابك منزلك إلى الدفاع جهادك الواقع التمي أمر إلهي ويعد خلافتنا عذاب إلهي بسوغيو هذا وحوين عذاب إلهي وحوين اللهم نسنكره إلهي سبحانه وتعالى كتابك حقات عيان لا يحي وأن أجد أن ما أنت عالمك وحكا الصعود إلى سمتك أنا طائفة يؤرئ سيسمي أي سيستان متقانا حزب الله وحزب الشيطان كتابك منزل كاي دستورك كفرك أيامان الله كدحيا متقانا حربي كدحيا haddaba inaad noqoto nin diinka nabi maxamed bishay hadaad tahay waxa weeyaan diinka uu istaag haddaba diin ya iskare shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi wuxuu leeyahay ad-diin liman qatala alayhi diinka islaamku waxa iskare ruuxa mataqaana u dagaalamo u istaagino difaaca ayaa iskare wuu leeyahay mataqaana in sheegay shaykhul ibn taymiyyah walidaalika diinka islaamka ahi waxa iskare waxa weeye in mataqaana qof ruuxa u istaago ruux mataqaana ka fariisane iyo soo sheeganna waxa leedahay waa la ilaashadaa xoolaha geelka iyo halka iyo hasha iyo mataqaana ganacsiga baqaarka hadii lagu soo weeraro waa difaacanaysaa waxay cadeen u tahay ina xoolihii leedahay haddaba diinka islaamka haddaad leedahay ayuha muslim waxa weeyaan difaaco maanta waa lagu heestaa xamar waad u jeedaa fisqiga iyo fasaadka kaniisada iyo kalaabka tumashada baktiga quranka khamriga iyo mataqaana khinziirka laga isticmaalo waxa weeye haddaba wax ilaahay kitaabkii mataqaana ku aaweeyaan inay sheeg mataqaana dhibaato ku aaweeye waa gartay walaalahaaga mujaahidiinta ah ee aad raayada tawxiidka isla xambaarsaneedeen isla halgamayseen ee hadda aad ka tagayso maxaa fariinaad u haysaa alxamdulillah akhi walaalaha muslimiinta ah ee gaar ahaan mujaahidiinta waxaan u dardaarmayaa awalan taqwa allahi subxaana watacaala
ayna tahay taqwada ilaahi subxana watacaala waxyaaba ugu horeeya oo mataqana ilahi u dilmaamo oo mataqaana u dardaarmay weeyaan macna wasiyatu alawaliina walaakhirin wa ilahi wuxuu leeyahy walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah. mujaahidiinta waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaa heesano aan ku dagaalamayno waa alla ka cabsi weeyaan. awalan ruux walba mujaahid ah waxa weeyaan ilahi subxana wataala ka baqo. taqwadana waxaa lagu soo khulaaseeya ilahi wuxuu fare qaado wuxuu kaa reebana ka tag weeyaan duuduub ahaan. ilahi subxana wataala inay ka baqaan ayaan awal u dardaarmaya. taqwadu waa mataqaana midan mataqaana anaga maanta guushana siin karta. ilahi wuxuu leeyahay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaqun ya ulil albab. wuxuu leeyahay tilmaamaya in wax la zaad qaato qofka muslimka oo zaad qaato waxa u khayr badan alla ka cabsiyo. ruux hadduu ilahi ka cabsado maqsadkiisa wuu gaarayaa. maqsadkan u socono maanta waa in mataqaana arladoo dhan raayat tawxiid laga taago. waa in bayt almaqdis laga taago raayat tawxiid. waa in laga taago aqalka casbe dhehene ilahi hamadoobeeye in laga taago weeyaan raayat tawxiid oo maqsadka weyn aan u socono. waa in mataqaana talaabiib laga taago raayat tawxiid weyn. haddaba maqsadkaa weyn iyo walaaleyna falastiin xureynteeda iyo mataqaana de isheegde dulmi iyo mataqaana inaan ummadda ka dulqaadno waxaan ku gaari karnaa ilahi subxaana wataala inaan ka boqon. ilahi muxuu leeyahy ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إلهي روحك كبقى وإلهي سبحانه وتعالى متقانا أدور متقانا عبادات كيسة وحكرنا من أوران نبتقلية. إلهي سبحانه وتعالى أريمه يمقصد كله إلهي وقفوا ذا بوله. حتى متقانا مجاهدين تحليه أولا وحوي إلهي سبحانه وتعالى متقانا كبقى يعني لنا كبقنا. ثانيا محليه هيان أعماش هيان وذروة سلام الإسلام متقانا الدين كينا سقف كيسوي. ولذلك السقف كان ومتقانا بافت عبادة ويان هوسا حتى يروح عباده waa laba shay aan kala maarmi weeyaan. waxay u baahan tahay in lagu sabro ikhwaani. waad soo dhaawacanteen, waa soo rafaadeen, waa ribaadeen. ilaahay waxa weeyaan ajirkiini dayici maayo biidni illaahi. waxa weeyaan idinkoo ikhlaas u niyeysanayo waxaan idin leeyahay ikhwaan hala sabro. sabarku waa mataqaana nabi sal slam wuxuu tilmaamayaa waxa weeyaan sabarku inuu yahay cinda awali sidna qacda hore waa sabarku. waxa weeyaan marka ugu horeysa unbaa laisgilgili. intaa laisgilgilayo waxa weeyaan sabar iyo kula dheeraan nasri goor imaan hadhiile waxaad dhahdaa akhiyo sabar oo mataqaana sabarku waxaa lagu gaaraa maqsadka u socota lagu gaaraa. waxaa lagu gaaraa ajra lagu gaaraa sabaaba lagu gaaraa. waa tu ilaahay leeyahay inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. xisaab la-aan baa ajirka lagugu durdurini hore bay xisaab la-aan imaadane waad garanaysaa waxa weeyaan ilaahay waxba ku xisaabinin. waxa weeyaan janno iyo xuurul-cayn iyo wanaaga aaraadinaysid ayaad ku gaaraysaa. waxaan ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu yaa mujaahidiina sabra oo waxaad la sabartaan cadowgan oo dhagarta badan dhibaatada badan shidada maran weliba cadowga oo mataqaanaa la sabartama oo asigoo intaas meel kasoo duulay dal ka fog reerkiisa xaalka islaamigiisii ka fog ayuu sabrayaa. muxuu ku sabraa beedalka ay ku fidaa rabo inuu adiga sankaa geliyo. walidaalika adiga dhulka u dhalatay muslim muwaxid ah waxa weeyaan adaa ka mudan oo tawxiid iyo xaq baa wadaaye aqiyo waxaan ku leeyahay ruux walba mujaahida ha sabro iyosan waktiga la dheeraanin. waktiga asaa markaa iska dhow biidni illaahi khilaafa islaamiya ayaa saacadaha soo wajahan ay ilaahi subxana watacaala ka rajaynaynahay inta laga gaarayo. waxay asabru saaca weye. waxaan leeyahay walaalaho inay sabraan qadiida aad ugu dadaalaan. mar walba shaydaana iska jira naftooda inay ku baraarujiyaan asabr. kulamaa taqwo iyo sabr lagaa helo mataqaana arrimaha oo dhan ilaahi subxaana watacaala wuu ku fudaanaya. sabarka ruux mujaahidka uu sabra ayaa laga yaabaaba nasri khilaafeed in lagu helaabaya khilaafa islaami in lagu helo. walaalaha mujaahidinta doorka ku sabra dhaxanta ku sabray furumaha ku sabray gaajada ku sabray duruufta ku sabray ayaa laga yaabaa sabarka ilaahi subxaana inuu bulaaliyo lagu helo mataqaana nasri iyo guul iyo sacaado in lagu helo ayaan u dardaarmaya. إذا وحنا ولا لم جايين أبشروا بنا وبشارنا يا وحد كل بشارة زتان قالوا وحي كفار جرتي إن ديارتي الضرانيس متقانا دي مسلمين تحكوا ماليس وحد كل بشارة زتان إن جايين تدخلوا لقى علي متقانا نبلير أما جنتال ومتقانا كسميسن حشوط وأهديك يهيب اللفو ديعان انت ومتقانا حشوط نوكلير كمتقانا إسلام كو سميسن لفهين يلبين إنيهين نوكلير إنيهين متقانا جايين تحكوا بشارة زتان هذا كلما إلهي سبحانه وتعالى ديجا يدركيس أو ضالي سنة أخي الحبيب وحويان النعمة كجرتها نصرنا وإمادة هذا واحد وقاتها جهادك أخي المسلم إن متقانا مجاهده وجهادك إنه كسو عليه وكتاقنا ديجا إنه داته ولذلك وحانكو قبرا رجنا ديجا إنه
إنه داتو هذه أخي حبيب والله أدت كداش دقيقة إنه داتو إله سبحانه وتعالى كجعلنا وحول يا النبي صلى الله عليه وسلم حديث تهمد أو صاري من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وحول يا النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع قشة من الله وقطرة دم يراق في سبيل الله أخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجعلها مجرا ديقا وديقا ليش بعض الماء لبسي حدي كبر لبسي إلهي إنه ضاعته شكاية جعل بدأ مر وقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يا إلهي هذا جعل لي هذيك هذاته كورنا هذه البهاي لفهاي دعانكاي حضنهاي بكل تدان كورنا يعني ما تقال أجر كي إيش على أخي وما القيام ربي كله لماذا يا عبد الله لماذا جدي عنفك ورسنك هذا محبور بري وتلاقي محبور بري جدك يديك محبور بري وإلهي سبحانه وتعالى مكوكو يدي هذا ذيك الله فيك أي في سبيلك إلهي يضبط هذا المحل فيه بربرين وإلهي كله صدقت يا عبدي أدولك رمبا شيكتين جلد الله يشهد أدولك الأخي إنه كله وحويان وحاكا حكت إلى تكون صبرت وحاكا حكت إيقاق إلى بحصة وحالي ولا لا مجاهدين والله ديك أنا حيانا ماتا وحويان أتخنا واجب نعمقي فلالي كسرانتها وحويان روح والبنا وحان جعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحويان إيمان كامل لما حيو روح أنتقى لجعل عليه وحنسي لجعله وحان جعل إيمان إلهي درتي إلى فيه بربران وحان جعل هاي التوحيد سنة درتي عليه إلى فيه ديجي بربران ولذلك أخيه وأدنى قرية وحاد كنسة وتكتي قرية حاسة عروتك كنسة وتكتي إلا إلا الله أرض الله جتها عملية وحويان من أفضل الأعمال إله لو ذلك اللي تاي وحنا عملية استشهادية على صوحة لينه وحنا ولا من المال مجيوان عملية استشهادية آديات على صوحة لينه فمي ديراب بلادهاي إله سبحانه وتعالى آد بهو أماني رسولك سوى أماني وتولي النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو يدي رسولك الله أي الشهداء أفضل النبي صلى الله عليه وسلم بودي أي الشهداء أفضل نقطة صحابه وحي كل عجرة وحصري ما المركز علينا وحسكرات تكون هذا مع الأخي وإن تكون على درجة وقصر يسوع النبي وحلو ودي ورشهادة كيف وقصر اللي بحضر وشيداني ما دخلنا دي عبد كل عاي مركز الذين يلقون القوم في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتربطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موت فلا حساب عليه وعني سنة الماضية ورقالة هذا هو ما تقال صفكورا كل أنتو وما تقال كنت خلدوتو أيضا إن عيدا أنا مفيرين وما تقال عيدا ما تقال عبسي إيجار دي مطلع جاهلين إلا لقد هذا كسي سقانة أفكا جليا لما تقال حبضو إيجالتالك هو حضرتك ومثلا هذا كده وفر لي بدن أو خلالك سر جنة كرة حساب يكون قدومي ذاتك وحساب الآن ده مثلا ده إلى سبحانه وتعالى ده جنة وبرنا إلى سبحانه أي أقصنا يو روح إلى سبحانه أقصنا حساب الآن بودر يا جنة السياق القول يا بوله ولذلك وحكى النبي صلى الله عليه وسلم دي إن مثلا مركي أي القتل أشرف وقت النبي صلى الله عليه وسلم من أهريق دمه وعكر جواد ورباور كادو تبربره هي روح صارنا بربره ديكي isla boqon gooyo ayaa u fadli boongurin nabiga sallallahu alayhi wasallam marka aad u jeedo fadliga dheeraadka akhi ha ku qalcin ma taqaana de shahada gaaban meesha ugu sareysa saxaabada taadi jireen innahum kanu yusari'una في الخيرات وإنا إننا كقنعنا مرتبة صار مرتبة هذا بعين رادين وحنا لا يعني ولا لا مجانين تاي عملية دا وعملية بركة سنيان لقى شكلين هلا سؤال ومدة متخاذلة وحلية فقاتلوا أئمة الكفر ومدة ما أنت ده لوسي وده لوجفه أئم قال هذا متخانا مدح دولة رؤساء فسادكooda ay gaalmo meesha lagu xirtiro waa camliidan waxaan ruux walbo inaga naga midahay maktabka ha soo haleelo wallahi fadli weyn baa mid ka taqursan tahay waxa weeyaan waxaan leeyahay ruuxa dhahay iimaankayga ma gaarsiisana warin yani heerkaas ma gaarsan daciif waaye wallahi daciif ma laakiin hadalka uu qaalay ruuxa wallahi waa ceeb bay ku tahay aad bay ceeb ugu tahay sababtoo ah adoo guriga ka soo tagtay muhaajir ah ilaahay darti u soo baxay heerka carruurta ka soo dhaxanta iyo baahidan iyo nolosha adag ku nool oo diyaar u tahay inay dadkii lagu digo هذا العملية هذه إيمانك ما قارن وهذا كوال خرصنا والله وحاقوفنا إلهي سبحانه وتعالى يقول الله إلهي وفولي أنا هاي إلهي حالك ومجيد عملية هي هليلي إلهي سبحانه وتعالى يوافدي لكن حاليا متقارن هذه إيمانك ما قارسنا إيمانك ما قارسين إلى نقول هذا كسوتك هذا كسوتك أروك هذا كسوتك خانتي هذه متقارنة دخانة كسوتك إدارة هي كاملة لماذا الله عيب واي إلى نقارن هيك صوت حدا إلى ربي يوافقي إلى عملي دوان جعلها إلى دخين يدي للربا إلى هي ربي عملي تشادي يوافقي إلى يكون عيس هذا متقارنة بحوار بتأخر أو كوجرة
haddii kale waxa weeye taqadum ikhwaan ayaan leeyahay walaalo gaar ahaan waxaa mataqaanaa walaala mujaahidiinta u dardaarmaya gaar ahaan raggii aan mataqaanaa dee asxaabteeda iyo mataqaana raggii macalinkan u ahaa ardayday ahayd waxaan leeyahay waxa weeye wadadan dee macalimiintu waa qudwa xasana weye wanaag iyo khayr bay inaan kacayaane aniguna dee macalinkiina ahaa dadka ardaydeeda weye oo mataqaana mujaahidiinta ah ay soo haleeleen iyaysan iga ta'aquran kullama ay maqlaan